dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay gaari booyad oo al-shabaab qaraxyo ay ka buuxiyeen nin xaaskiisa ku dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. Yemen oo sheegtay 30 Soomaali oo ka garab dagaalamaya Xuutiyiinta inay dishay. Hirshabeelle oo qorshe wax looga qabanaya ammaanka deegaanada maamulkaasi u gudbisay dowladda Soomaaliya. Koonfur Afrika oo amar ku bixisay in la soo qabto dadka Soomaalida ku dila dalkeeda. Madaxweynaha Puntland oo magaalada Boosaaso ka wada kulamo ammaanka looga hadlayo. Sacuudiga oo malaayiin dollar siiyay ilmihii uu dhalay wariyihii meedkiisa la jarjaray iyo xeerka xakameynta hubka New Zealand oo maray akhrinta koowaad. ayna ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay gaari booyad oo ururka al-shabaab qaraxyo ay ka buuxiyeen kadib markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Sabiid oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dowladdu waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay gaari qaraxa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa xiriirka bulshada wuxuu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay qabteen gaari qarax uu ka buuxay. wuxuu sheegay gaarigan oo ah booyad qarax ay ka buuxiyeen shabaab inay ka carareen kadib markii deegaanka ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka. ciidanka xoogga dalka ayaa gacanta ku dhigay gaari booyad ah oo ay saarnaayeen qaraxyo oo ay ka carareen al-shabaab kadib markii ay ciidanka xoreeyeen deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in shabaab ay damacsanaayeen qaraxyadaasi inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliya sida uu sheegay. argagixisada ayaa damacsaneed inay fuliyaan mid ka mid ah weerarada ugu khasaaraha badnaa taariikhda laakiin ciidanka ayaa xogtooda helay oo ku dhaqaaqay dhankooda si ciidda ay ula simaan ayuu sii raaciyay qoraalkiisa. ma jirto cadeymo ka baxsan hadalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ee ku aadan in ciidamada dowladda ay qabteen gaari qarax ka buuxay oo booyada oo al-shabaab ay ku diyaariyeen deegaanka Sabiid oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose dhowr kiiloomitirna u jira degmada Afgooye ee gobolkaasi. ciidamada dowladda Yemen ayaa isniintii shaaciyay inay gobolka Daale ee koonfurta dalkaasi ay ku dileen tilo Afrikaan ah oo ka barbardagaalamayay kooxda Xuutiyiinta. bogga lagu magacaabo September.net ee ku hadla afka ciidamada dowladda Yemen ayaa shaaciyeen dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada iyo Xuutiyiinta ee 5 maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka dhowr ah oo ku yaala dalkaasi Yemen oo ay ka mid yihiin Meerihiis iyo sidoo kale Dumta oo ku yaala waqooyiga gobolka Daale ee dalkaasi Yemen in kooxahaasi lagu dilay. dagaalka xooggiisa ayaa weli waxa ka soconaya magaalada Dumta oo ku taala buuraleyda Naasiriya oo ah goob muhiim u ah gacan ku haynta labada dhinac. bogga waxa uu sheegay in dagaalkaas Xuutiyiinta lagu gaarsiiyay khasaare dhan 267 dhimasho ah iyo dhaawac isugu jira Afrikaan dhowr ah oo ka barbardagaalamayay kooxahaasi. sidoo kale waxa uu sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan hogaamiye sare oo ka tirsan Xuutiyiinta oo lagu magacaabo Ibrahim Aqa oo iyo sidoo kale 30 Soomaali ah oo ka barbardagaalamayay kooxda Xuutiyiinta kadib markii ay askareeyeen kooxdaasi. sida uu sheegayo boggan kooxda Xuutiyiinta ayaa mushaar siinayay maleeshiyad dhowr ah oo Afrika u dhashay kuwaas oo qayb ka yihiin Soomaali si ay ula dagaalamaan ciidamada dowladda Yemen ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiyiinta. ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay Xuutiyiinta oo laga hadlay arrintan isla markaana lagu xaqiijiyay in Soomaali lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada ku yaala dalkaas gaar ahaan kuwa waqooyiga. tuulo hoos tagta degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan kadib markii haweeney uu dilay saygeeda. haweeneydan ayaa la soo warinayaa inay haysay 2 caruur ah waxaana uu dilka u yimid kadib markii muran ka dhashay ninka uu maseeray darteed ee haweeneyda nafteeda ay u weysay. dhacdadan ayaa si weyn looga dareemay Warshiikh iyo tuulooyinka hoostaga. ninka xaaskiisa dilay ayaa isaga baxsaday goobta uu dilka ka geystay iyadoona ehelada gabadha ay markii dambe aaseen meedka haweeneydan. tuulo ka tirsan degmada Warshiikh oo la yiraahdo Xalolweyn ayaa waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan oo ah nin xaaskiisa dilay. ninkaasi oo xaaskiisa u dhashay 2 caruur isla ku maqlay marka khilaafkii dhaxmaray ayuu ku dilay saas maqlay ma garata.
maxaa ka dhaxeeyay oo khilaaf ah oo sababay heerkaas in uu xaaskiisa dilo? والله هذا أرنتاس يا أرن مسير عمل مغلي إنه مسير عن أودي هي caruur maxay u haysay aad maqashay? لا عروري وهي tuulada dhacdan ay ka dhacday warshiiq imisa kilomitir ayay qiyaastii u jirtaa? adiga 10 kilomitir goormay dhacdadu dhacday? xalay haye ka waran see looga dareemay warshiiq arrintan naxdinta leh ee ninkan xaaskiisa uu ku dilay? هذا لو dareemay amniga degmadana waa ku baxeen iyo dadkii deegaanka darteedaas in la soo qabtaan rajinaa ninkii dhacdada xanuun sameeyo ninkii xaaskiisa dilay ma lahayaa mise uu baxsaday? waa baxsaday waa lagu maqayaa in la soo qabtaan rajinaa caruurtii maamada la dilay ee dhashay yaa gacanta ku haya? waa waalidiinteeda ku haya iyo walaalaheeda oo meesha la deganaya. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada ay dhacdadan ka dhacday tuulada hoos tagta iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn in ninka falkan geystay uu yahay ruux caafimaad ahaan u taam ah iyo in kale. Hirshabeelle ayaa qorshe wax looga qabanaya ammaanka deegaanada maamulkaasi waxay u gudbiyeen dawladda Soomaaliya. Cabdiqaadir Jakarta ayaa dhameystiraya. madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul waxa uu kaga hadlay caqabadaha dhanka amniga ee haysta maamulkaasi iyo waliba dhinaca horumarada. waxa uu sheegay madaxweyne Waare in dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiyeen dhowr istiraatiijiyad oo amniga wax looga qabanayo isla markaana ay rajo ka qabaan in jawaab uga timaado dowladda. waxa uu su'aal iska weydiiyay dowladda oo haysato ciidamo aad u fara badan balse weli ay sugi laadahay ammaanka dalka si gaar ah deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo wadooyin ka mid ah weli ay go'doonsan yihiin. waxaan ku baaqaynaa amniga in wax laga qabto annagu Hirshabeelle haddaan nahayna doorkeedii diyaaraan u nahay. waxaan dowladda u bandhignay dhowr istiraatiijiyo oo wax looga qabanayo amniga Hirshabeelle. waxaan rajo ka qabnaa in sida ugu dhaqsaha badan jawaab ay nooga timaado dowladda. rajadaasaan qabnaa. laakiin haddaanan amniga wax laga qaban oo amnigu sida uu yahay sii ahaado Hirshabeellena horumar lagama gaari karo. xamarna xaaladay ku sugan tahay waad aragteen wayna ka sii dari doontaa. sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Hirshabeelle inay amniga wax ka qaataan doorkooda. maalin dhoweed waxaad social media iyo telefishinada ku arkaysan ciidamo gadoode. hubka bannaanka la soo dhigay oo ciidamadaas bannaanka ay soo dhigeen oo la isdaba dhigay qofkii arkay waa arkay. war haddii hubka intaas leeg aan leenahay oo awoodda intaas leeg aan leenahay oo ciidanka intaas leeg aan leenahay waxa naga halaysan waxbaa naga halaysan waxa naga halaysan aan saxno. waxa naga halaysan markaan saxno ayaa ciidankaasu faa'iido keeni doonaa. laakiin amni darrada waxa noo keenay ciidan la'aan maaha, hub la'aan maaha, dad la'aan maaha, tala la'aan ayaa meeshaas wax dhigtay. talada dib ha loogu noqdo waxna ha laga bedelo. deegaano badan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa haatan waxaa gacanta ku haya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana maamulka Hirshabeelle uu wajahayaa caqabad dhinaca amniga ah. waxaana caqabada ugu weyn oo amniga ay ka haysataa wadada isku xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar halkaas oo marar qaarkood qaraxyo iyo weeraro toos ah ay ka fuliyaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. walow saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ee dhowr mar ku celceliyeen in wadadaas ay furi doonaan isla markaana sugi doonaan amnigeeda. dowladda Koonfur Afrika ayaa si kulul u cambaareysay dilalka dadka soo galootiga oo ay Soomaalidu ku jiraan loogu geysto dalkaas kuwaasoo inta badan ay ka dambeeyaan kooxaha burcadbadeed ee gaangistarada loo yaqaano. qoraal ka soo baxay dowladda Koonfur Afrika ayaa waxaa lagu cambaareeyay weeraradaas waxaana hay-adaha amniga dalkaasi lagu faray inay gacanta ku soo dhigaan kooxaha caadeystay dilalka dadka soo galootiga ah oo ay qayb ka yihiin dadka Soomaaliya.
soomaaliyeed. afhayeen u hadlay booliiska koonfur afrika ayaa sheegay in weerarada ay inta badan ka dhacaan meelaha fogfog oo ciidamada aysan joogin islamarkaasna ay noqdeen kuwa soo laalaabta, waxaana uu ku amray ciidamada booliiska dalkaasi inay tallaabo ka qaadaan.